runtii dadweynaha soo wacay inta badan waxay leeyihiin waa in dowladda ay arrintaani ay soo faragelisaa waa in baaq ayaan dirayna ay leeyihiin arrintaana way soo laalaabatay misleedahay dowladda haatan uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre in arrintaani ay soo faragelin doonaan ayna xal waara ay ka keeni doonaan horta runtii haddii aan badino brodiiqa anaga aan sameynayna haddii aan nahay reer marko haddii aan badino qasab waay maxaa yeele Soomaaliya nahay qof walba meesha oo kasoo jeedo oo doodaya marka waxaan maleynayaa media anaga ma ku badini marka inaa haddii aan kusoo badano qasab waay waa maxaa lahaa shaki ma ku jiro markaasi codsiga iyo tixgelin waliba haddii loo diro warqado qoraal ah oo kaleeto ama email loo diro dowladda federaalka sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha oo kaleeto oo la yiraahdo arrintan way iska daba noqotay waxaa loo baahan yahay xal war in la gaaro marka waxaa leedahay waa in ay u kacdaa reer marka dadkeeda meel walba ay joogaan markoo dadkeeda inay kacaan ay ku qasbayeen haddii kale waxa waaye saanaas kaga jirayna daacado runtii marka waa magaalo runtii aan dhihi karno magaalo kheyraadka aad ugu badan yahay waa magaalo aad bilicdeeda u fiican yahay runtii waana magaalo taariikhi ah runtii markaad daawato magaalada marka sida ay waagii hore ahaan jirtay runtii qof walba wuxuu dareemi karaa magaalada marka waxa ay tahay ayadan waan idiin soo dayn doonaa qaybtaasi oo muuqaalka ah bal siday ahaan jirtay waagii hore iyo sidoo kale hees uu markaasi ku ammaanay fanaanka caawa nala fadhiya maxamed deeko oo barnaamijka nala falanqeynayo oo markaasi marka cadeey uu ku ammaanay ayadan waan idiin soo dayn doonaa bal mar kale aan ku laabano qaybihii telefoonka hello assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaa naga soo waceyso aniga magacayga waxaa la dhahaa Zahra Sheekh Nuur Cali Barrow waxaan kasoo wactamayaa dalka Sweden waxaan ahay qof oo ka tirsan ururka walaalaha waxqabadka marka cadeey waxaan idinkugu mahadinayaa adigoo daacad iyo maxamed deeko maasha Allah tabaarakallah barnaamij aad iyo aad u fiican waa barnaamijkiina وانا كم هاتسنتين إن عبت شعبي عاد بنانك صودتين. سارو عاد بقى ما سنتها سيدا كده واجسي برنامج كانوا حنقول لك قلناي إن الأوجه هذا التجارة ذا كالصعدة إن مركع محا حلو ولا هي إن أديك إنه حكيت السنة هاي إن أما أقدمي كتها الرضا ولا لا وحخبت كا أما مركع عاونات الجارسية إن دمذا مركع. هذا ومجال قديم ومجال عاديات مجالو يمكن هو البحر ماذا لقصو جاري. إن وحا حلو ذلك إن لو وذ استاجو علماء الدين كا وحجارك كا فنانين تا أي نوع هنقطه إن لو وذ استاجو ومال كستنا أكثر بناك لصادق قف كست أو مركب كو أكثر صدق إنه عكيس صابعيه أو كعب لعرضه سير حلو ولا حلو عليه لا ذاك شعب كمركي أيك دبعت الله يسد أي كهت لا مسمعها واتاي سارو هوري مدحوينيه هوري حسن الشيخ uu ka hadlay wuuna cambaarey dagaalada ka socda magaalada marka inkastoo madaxweynahan cusub aan wali uusan ka hadlin jaalid ahaan jaalida qurbaha joogta ee magaalada ka soo jeeda marka cadeey maxaa la gudboonaya isleedahay inay sameeyaan waxaa la gudboon inay u ololeeyaan sidii nabad looga heli lahaa sidii loogu ay ugu ololeeyaan in nabad gobolkaas ka dhacdo gobolkan waxay nabad ka dhacaysaa qaasatan magaalada markii shacbigiisa oo dadka tuso magaalada in dhibaatadana taagan madaxweynaha oo cusubna waxaan ka codsanaynaa arrintan maadaama madaxweynihii hore uu wax ka qabanin inuu madaxweynahan u ololeeyo kuna dadaalo sidoo dadkaas maslaxa dhexdooda u dhigi lahay waa mahadsantahay adigoo fursadan ka faa'iideysanayo sahro maxaa baaq u diri lahayd dadka ku nool haatan ama dhex jooga dagaaladan socda ee magaalada marka iyo guud ahaan caalamka meel walba ay joogaan dadka ka soo jeeda marka dhammaan dadka gobolka shabeellada hoose qaasatan magaalo madaxdiisa marka cadeey dadka ku abtirsado dadka magaalada ku nool iyo kuwa dibadaha joogaanba waxaa ugu baaqaya inay kulligood baaq nabadeed u jeediyaan inay ku dadaalaan sidii nabad looga dhali lahay magaalada insha Allah dhamaantoodna waa hambalyeena inay ku dadaalaan nabadana waa wax aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed hal lagu dadaalo magaaladaas sidii nabadeeda loo soo celi lahay qaasatan reer marko ha ku dadaalaan kuwa magaalada dhexdeeda ku joogaan la rabaa inay ka qayliyaan ay dhahaan meeshaan nabada u baahanaa anaga nabad waa shaqo ma haysano dhibaato ma haysato maxaa dhacay anaga magaalada aad ay dadkii u burbursan yihiin dadkii dada qaar magaalada Muqdisho ku dhibaataysan oo magaalada markana guriga ku leh xamarna
guryo la-aan taagan oo ijaarka iska bixi karin. sahro aad baan kaaga mahadcelinaa sida aad noo soo wacday annagoo og inaad tahay dadka u ololeeya ama wax tara dadka masaakiinta aan wax haysanin waana kaaga mahadcelinaynaa soo wicitaankaaga adigoo jooga waddanka Sweden aad baa u mahadsan tahay. idinkana aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum. waa tahay weli daawadayaal barnaamijka ayaan ku jirnaa inkastoo qeybaha telefoonada aan usoo laaban doono waxaa sidoo kale ila fadhiya dhinacayga waa Maxamed Deeko oo runtii ah fanaan aad u garanaysaan ahna director filimada sameeya oona runtii hees ammaan ah u qaaday magaalada Marka ayaan asagana barnaamijka aan wax ku falanqeyn doonaa anagoo fursad idin siin doono daawadayaasheena ayadana barnaamijkan waxaan ugu magac darnay dagaalada ka socda Marka Caddey maxaa xal loogu laayahay waa qodobka barnaamijka aan kusoo qaadanay idinkana fikirkiina hawada ayaad inoo soo marin kartaan intaan barnaamijkan ku guda jirno. Maxamed ka waran barnaamijka runtii dad badan ayaana soo wacay inta badan waxay leeyihiin waa in baaq loo diraa dowladda federaalka inay ka hadasho arrintaani dadka jooga waxay ugu baaqeen nabad anigoo og inaad adiga tahay dadka runtii madaxna u ahaa ururka la yiraahdo waxtarka oo dad badan oo agoon ah wax u qabtay hees ammaan u qaaday sidee dareenkaaga uu wallaahi idaacad horta ku salaama walaalkay qaali magaalada Marko magaalo qadiimi ah waa qof walba uu yaqaan magaalada Marko waa magaalo runtii dagaalada Soomaali ka dhacay waa magaalada kaliya raxmar ay u soo goor jireen weligeed dagaal ma uusan ka dhicin laakiin hadda runtii aad ugu xumahay marka waxaan leeyahay magaaladan waa magaaladeeni waxaan dhihi karaa qof walba oo ka damqanayo si wax uu qaban karo waxa uu qabto marka magaaladan markana waxa way taariikhdeeda waa ka sheekeynaa hadii aan dhahno waqti badan ay qaadanaysaa waa sidaa sheegtay Maxamedo dagaaladan ma ahan markii ugu horeysay ee dhacaan muddo badan ayay socdeen inta badan sidaan hore u sheegay madaxweynahii hore Xasan Sheekh uu ka hadlay mas'uuliyiin badan ayaa ka hadashay ma jiraan jaalid qurba joog ah ama gudaha joogaan oo Marka Caddey kasoo jeedo oo arrimahan si aad ah uga hadlay ama ugu dhiidhiyay dhibaatada halkaasi taagan runtii ma arkin jaaliyad oo magaalada Marka ah oo ka hadasha oo macnaha inay soo istaagaan ka dhiidiyaan nabadeed jeediyaan TV-yada imaadaan ka hadlaan arrimahan baa dowladda beesha caalamku xasuulan weli ma arkin magaalada Markana dad tayo leh dad mutacalimiin ah dad oo runtii wax bartay ay leedahay laakiin ma og meesha ay wada aadeen waxaana leeyahay dadkaasaan baaq u diraa inay magaaladoodii maxaa la dhahaa meel walba ay adduunka ka joogaan inay isku imaadaan oo ay ka wada hadlaan dadka ka taagan waa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka wax badan ayaan ku falanqeyn doonaa aniga iyo fanaan Maxamed Deeko oo runtii hees uu horey ugu amaanay magaalada Markana waan idiin soo dayn doonaa balse markaan waxaan ku laabanaynaa qaybihii telefoonada dib ayaan mar kale falanqeynta ugu soo laaban doonaa haddii aana maqasho magacaaga halkaa naga soo waceyso Axmed Maxamed Xaaji Xajo Toobas waxaan kala soo hadlayaa dalka Saudi Arabia maasha Allah aad baa umahadsan tahay adiga iyo asxaabta jooga Sacuudiga waan idin salaameynaa barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanay caawa aan ka hadlaynay dagaalada Marka ka socdo maxaa xal loogu laayahay bal adiga aragtidaada wallahi aragtidayda waxaan baaq u soo jeedinayaa dhinacyaha ku dagaalamaya sax deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose bisha magaaladiisa Marka Caddey oo ah magaalo aad noogu qiimo weyn iyada dhammaan dadka deegaanka ku nool culimada dadka walaalaheena waxay eebo ugu baryaa inay ilaahay islaax bayna naas aan ka gudubno colaadahan oo soo noqnoqda had iyo jeer sax oo ilaahay dartiisa isku saamaxaan in almu'miniina aqwa Soomaali meel walbay joogto waa walaalo intooda badan qurbaha iyo meel walbay ku dhibaataysan yihiin dhibka Allah naga saaro wadankana guud ahaan Allah noo xasiliyo waa tahay markii laga soo tago Marka gobolo badan ay Soomaaliya ayuu dagaalo ka dhacay runtii dagaaladana waa la xaliyay inta badan magaalada Marka dagaaladeedu way soo laalaabteen madaxweynihii hore Soomaaliya wuu cambaareeyay inkastoo madaxweynaha haatan weli arrintan uu ka hadlin uu cusub yahay maxay adiga kula tahay dagaaladani ay u joogsalayeen wallahi aniga waxay ila tahay ra'yi ahaan horta ilaahay ku dhamaaday naxariista rabbi lagama reesto Soomaali weyna dhammaan waxaan u soo jeedinayaa in wixii colaada ah ama in laga tegay marxaladda maanta jirta ummad walaala ummad muslimiin ah
maanta ilaahay kuma darna cadow banaanka ka yimid in la iska ilaalisho mooye dadkii walaalaha inay isfiirsadaan oo wax la erooyaha kaa qabo waa runta waxaan baryaynaa igana inuu ilaahay meel walba oo colaad ka jirto soomaaliya uu islaax ugu bedelo biidnillah waa tahay inkastoo xilligan 2017 ay xun tahay in dagaal markaasi dad walaalaha ay isdagaalaan markaan usoo laabano jaaliyadda marka caddey ee dunida dacladeeda ku kala nool arrintaani maxaa la gudboonayaga inta badan jaaliyadaha soomaalida meel walba ay joogaan oo ay ka qayb qaataan baaqyo nabadeed ay soo jeediyaan dhammaan cilmaadiin wax walba ka hadla odayaal dhaqameedyada marka saas ay tahayna waxa waaye baryada ilaahay iyo naxariistiisa lagama raysto annaga meel walbaan joogno ugu ducaynaa caranka haddaan joogno meel walba soomaali maxamed inay gacnaha isqabsadaan sax oo lagu walaaloobo uqdad iyo ilaahay kuuma darnaada isfaquuq ina laga gudbo biidnillah taas arjeynaa aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waqtigaaga aana siisay waan kaaga mahad celinaa sida barnaamijka quruxda badan aa ula qayb qaadatay aad baa umahadsan tahay aan kaa wadaa waa tahay daawadayaal barnaamijka waxaan markaan runtii soo gaarnay qaybihii dambe ee gabagabada barnaamijkana sidaan hore idinkugu sheegay waxaan kusoo xiri doonaa hees uu inoo qaadi doono fanaanka maxamed jeko oo markaasi ammaan ugu jeediyay magaalada marko haddii aan qadka telefoonka aan ku laabano bal daawadaha kale ee qadka ku jira hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah adoo magacaa ku bilaaba iyo meeshaa joogto daacad waxaan ahay gabar la yihahdo maandeeq nuur garaash waxaan filayaa waa fanaanada maandeeq aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb qaadato anagoo og inaad tahay fanaanad mar walba u ololeeyo soomaalida meel walba ay joogaan oo dhibaatafanaanad qaran ayaa tahay kusoo dhammaantiin waa idin salaamayaa habeen wanaagsan soomaali maxamed meel walba joogaan waan salaamaya ummadana maxamed waan kaa guddoonnay barnaamijka waxaan maanta kusoo qaadanay dagaalada ka socda magaalada marka waxaa xal loogu laayahay aragti ahaan adiga sidee kula tahay maadaama aad tahay fanaanad qaran dagaalada marka socda waxaan leeyahay allah kala qaboojiyo ummadda soomaaliyeed dagaalna faa'iido mala wiila ku dhinta maan wiil muku dhasho mogtahay sax marka waxaan dhihi lahaa ummadda nabi maxamed oo degan marka in ilaahay waa ku maqalnaa madeeq haddii qadka ku jirto maxaa ugu baaqaysaa dadkan walaalaha isdagaalayo walaalaha dagaalka naga dhaafa nabadaa noo soo carfaysa dagaalka naga dhaafa aan leeyahay dadka dagaalka wado ummadda dagaalka wado dagaal u baahan maanta waa ujeedin adduunku waa isbedelay abaaraha soo socdo dhibaato baahi iyo shaqo la-aan iyo dhalinyarada dhibaataysan hooyooyinka dhibaataysan marka dagaal ma rabno waxaan idin leenahay dadka dagaalamayo dagaalka naga dhaafa islaamkaa tihiin waa tahay maandeeq fanaanad qaran waan kaaga mahad celinaa sida barnaamijka quruxda badan aa nogala qayb qaadatay waxaana filayaa inay waanadaada iyo guwaabadaada ay maqli doonaan aad iyo aad ayaa umahadsan tahay adina aada umahadsanta daacado salaam walaalkay wariyay qaaska aana ku salaama waan kaa guddoonnay anagoo waan kaa guddoonnay maxamed eko waan ku salaamay fanaankayga waan ku salaama adina isbaqay dhammaan haddii ummadda dhan maxamed qof walba uu soo arka dagaal lagu faa'iidalaya waa aragteen dagaal lagu faa'iidalaya waa lasoo arkay maanta marka dagaal mu noqdo marka caddey marka waxaa waaye marka waa la wada jecelyahay ummadda degan waan jecelahay ilaahay ka qaad culeys waa tahay aad baa umahadsan tahay daawadaal barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa fanaanadeena qaran ayaan ugu dambeysay oo aan kusoo xirnay barnaamijka waxaan idiin soo dayn doonaa ama barnaamijka aan kusoo xiri doonaa hees uu qaaday fanaanka caawa barnaamijka ila falanqeynaya waa maxamed jeko ahna director filimada sameeya oo runtii aad ugu qiirooday sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan baaq aniga laftikeyga ugu jiro walaalaha ku dagaalamaya magaalada marka waxaan leeyahay dagaalka iska joojiya 26 sano in ka badan ay Soomaali dagaalamaysay intaan ka badan uma adkeysan karaan marka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo sidoo kale dowladda federaalka waxaan leenahay arrintaasi inay xal degdeg ah ay ka gaarto maxamed maxaa adiga kusoo xiraysaa barnaamijka waxaan leeyahay marko ilaahay sidii hore ilaaha nooga dhigo daacdo waxaana leeyahay magaalada marko qof walba magaalada marka kasoo jeeda waxaan leeyahay gacmaha isqabsada insha allahu tacaala wax walbana anigay nagu xiran yihiin dadka magaalada marka deganna waxaan leeyahay ilaahay dhibka ha idinka qaado aad baa umahadsantahay runtii magaalada marka muuqaalo badan ayaan ka daawaday inkastoo aan tegin meelaha aan tegin ay ku jirto waana runtii magaalo aada u qurux badan runtii aan jeclaan lahaa mar inaan tago maxamed heestii aada u qaatay marko ama aada ku ammaantay ayaan jeclaan anigii daawadayaasheena bal inaad noo qaato diyaar waa tahay daawadayaal heestaas ayaan barnaamij kusoo xiraynaa idinkii maxamed jeko aan idinkaga dhexbaxo
sidaan hore idinkugu sheegay barnaamijkan heestaas ayaan kusoo xireynaa waa anigoo cabdiraxmaan yuusuf daacad iyo sidoo kale alfanaan maxamed eko intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa soomaaliya nabad reer marka caddey nabad